wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa si kulul uga hadlay xiisadda sii xoogaysanaysa ee u dhaxaysa Ahlus Sunna wal Jamaa iyo dowladda federaalka ah Soomaaliya. Wasiir Sabriye ayaa hoggaanka sare Ahlus Sunna wal Jamaa uga digay inay ka hor yimaadaan dadaalada ay ugu wado dowladda Soomaaliya isla markaana ay fashiliyaan qorshaha lagu doonayo in lagu dhiso galmudug mid ah. kale wuxuu sheegay wasiirku inay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in horumar laga gaaro arrimaha galmudug lana dhiso maamul loo dhanyahay si looga gudbo ayuu yiri wasiirku khilaafaadka hareeytan iyo markii la dhisay maamulkaasi. dhawaaqa ka soo yeedhiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Mr. Sabriye ayaa ku soo aadaya iyadoo ay haatan jiraan xiisado u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlus Sunna oo ka tagan gobolka Galgaduud kadib markii dowladda Soomaaliya si buuxda ula wareegtay degmada Guriceel iyo waliba qaybo kale oo kamid ah magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galgaduud.